السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلن كلو xiiso badan oo muuqaaladii caafimaadka ee cilmi nafsiga barnaamijka caawana waxaan doonayaa inaan kusoo qaadano muuqaal ku saabsan xanuun la yiraahdo preoccupied attachmentis ama tacalluq maradi. waa xanuun dadka qaybtood ku dhaca dhinaca nafsaaniga kaga dhaca kaasoo qofka kale uu u heysanayo alaab oo kale uu isku dayo inuu kontaroolo oo maskaxda ka qabsado oo inuu jecel yahay u haysto laakiin dhinac waxaa cilad ka haysataa nafsi ahaan oo qofka kalena waxa ku imaanaysa xanuun nafsi ah haddii uu calaaqada sama xiriirkaas uu ku sii jiro. haddaba waxaan rabaa muuqaalkan inaan arrinta kaga faahfaahino intaanan guda gelinsa waxaan rabaa inaan idin sheego muuqaalada aan idin duubeyno oo dhinaca la xiriira nafsaaniga ama xanuunada guud ahaanba aan ka sheekeyno waxa uun kaliya ugu talagalnay macluum ahaan iyo aqoon ahaan ee maaha qofka intuu calaamadihii arkay inuu yiraahdo xanuunkaas aniga qaba ma hebel ayaa qaba. waxa u baahan tahay haddii calaamadaha qaar aad iska shakisay waxa cidda awood u leh waa dhakhaatiirta oo calaamadaha isku keeni karta xanuunkaasna tashkhiisin karta. sidaasna waxaa habboon inaad kula xiriirto haddiiba aad calaamadaha qaar isku aragto. marka ugu horeysa waxaan rabaa inaan ka hadalno horta sideedaba waxa la yiraahdo preoccupied attachmentiska waxa waaye qofka inuu isku dayo qofkan inuu waa xiriir dhinaca asluubka dhibaato ka qabsanayso qofka oo uu jecel yahay qof kale uu xiriir kale leeyahay oo inuu qabsado inuu isku dayo inuu mar walba haysto mar walba la joogo yani kontaroolo oo xagee ka baxday agee aadi halka qofka kale damana dhibaato ay arintaas kala kulmay. marka waxaan rabaa inaan isku eegno labadan jacaylka rasmiga ah ee caafimaad qabka ah ee qofka dhisaya oo jacayl la oran karo iyo midkan aan jacayl ahayn yani tacalluq maradi ah qofkan qofka kale ku dhagan yahay oo yani rabo inuu isku dhajiyo alaab ahaan u haysto ayaan rabnaa inaan ku faahfaahino. horta marka hore sidee waxay ku kala duwan yihiin isbarbardhig ku sameyno. marka ugu horeysa horta jacaylka cishqiga oo labada qof ka dhexeeya waxaa la yidhi waa xiriir caadifi ah oo qoto dheer kana dhexeeya laba qof oo labada qof waa garanaysaan waa gabadh iyo wiil ama dad isqaba xaas iyo inankeeda odaygeeda. marka waxaa ka dhexeeya labadaas istaageerid kalsooni ixtiraam iyo kalgacal qoto dheer ayaa ka dhexaysa iyo isku naxariisasho taasoo markaa qofka kale uu ku keenaysa inuu taageero oo kobco labadoodana istaageerid oo kala bedel ah oo kan wuxuu ku taageeray kan laakiin maaha mid la qaadanayo ka kalena uusan waxba bixinaynin laakiin labadoodiiba waxaa ka dhexeeya labadaas way isla socdaan oo ayaa taasa waxaa la oran karaa jacayl rasmi ah oo xaqiiqi ah inuu yahay. waxay kaloo leedahay inay isku saamaxaan oo xiriirka spaceka uu u baahan yahay labadooda sidoo kale ay wanaajiyaan mar walba sanadka ka dambeysa xiriirkooda iyo calaaqadooda ayaa asal u ah oo jacaylku sii ziyaadaa mar walba. waxaa kaloo iyadana ku xiriira dhinaca xiriirka ka dhexeeya maalan waa xiriir saraaxa ah run laysku sheegayo ka fog in laysku ciyaaro maskaxda laysaga ciyaaro sidoo kalena ah dad istaageeraya mar walba. taas marka waxay keenaysaa inuu keento deganaansho dhinaca caadifada iyo nafsiyadda qofka labadaba. waxaa jira marka tacalluq maradi ama preoccupied attachmentis waxa waaye waa xanuun qofka ka qabsanaysa oo aan caafimaad qab ahayn dhinaca habdhaqankiisa waxayna keenaysaa marka inuu isku dayo inuu qofkii qabsado inuu caadifadiisii ku kontaroolo markaas waxaa imaanaysa xataa haddii uu qofkan kula joogo xataa uu la joogo yani weli waxbaa ka maqan nafsadiisa waxay u sheegaysaa weli laguma jeclo weli saan laguma yeelin weli baahiyaad badan baa jira baahiyaadkaas waa inaad dhammaystirtaa yani wuxuu isku dayayaa marka waana dadka inta badan personality disorders ka qaba ama cilad shakhsiyadeed ka qaba ayaa saa inta badan ciladaas leh. marka waxaa la yiraahday waxay leeyihiin ma ogola marka
xuduud shakhsi ah inay la kala yeesho waxaana meesha ku baxaya shakhsiyadii qof ayaa meesha ku baaba'aysa oo haddii xataa qof kale uu isku dayo inuu tanaasulo in badan dhibaato badan ayuu kala kulmaya marka saddex jaanib ayaan ka eegaynaa ama saddex arrimood horta marka ugu horeysa dhinaca xorriyadda sida ay ku kala yihiin markay jacaylku xaqiiqi yahay oo rasmi yahay oo caafimaad qab yahay iyo marka uusan caafimaad qab ahayn sida ay kala yihiin maalan marka uu caafimaad qabka yahay xorriyad taama ayaa ka jirta sidoo kale waa yani qofka qof kale uu ku kobcayaa oo shakhsiyaddii qofka ayaa dhismanaysa markii xorriyad uu jiro xorriyadda waa waxyaalaha asaasiyaadka uu qofku haysto haddii lagu yiraahdo maanta taleefankaaga dhegeysanayna oo waa la soconayna oo lagu yiraahdo wax kastoo samayso waa kula soconaya waa ku kontroolaya maskaxda kaa qabsanaya qofna ma ogolaanayo waa wax aad u dhib badan yani qofkana ciriiri badan ayuu ku dareemayaa marka waxaa jira marka xorriyadda maadaama qofkan uu haysto qofka caafimaad qabka waa la istaageeraya ihtimaamaad baa jira macnaha xagee ka baxday waa la iswarsanayaa sidoo kale waa la isku soo xiisayaa labada qofba taasoo marka dambe qofka qof kale ay ku keenayso inuu nafsadiisa iyo shakhsiyadiisa mar walba ay kobac ku socdo waxaa kaloo masaaxada iyo spaceka ayaa la isku ogol yahay inuu qof kale waqti soo qaato asxaabtiisa la soo qaato soo fikiro macnaa calaaqada markii loo soo noqonayana ay noqoto calaaqo dhisan marka jacaylka caafimaad qabka ma dalbado in mar walba la wada joogo masaaxo ayuu ogol yahay space ayuu u ogol yahay labada qof inay u dhaxayso sidoo kalena xorriyad ayaa ka jira taama halka kan kale aysan ka jirin bataatan xorriyad maskaxda la iska qabsanayo la isku mashquulsan yahay baaswarkaaga xagee geysay taleefankaaga xaguu aaday xagee ka baxday maanta yaa la soo kulantay su-aalahaas ay aada u badan yihiin sidoo kalena baahiras badan oo aan la dhammaystiri karin oo awood xataa haddii labada qof ay wada joogaan awooddaas xataa aysan jirin in la dhammaystiro ayaa jirta meesha taasna waxay keenaysaa marka dambe qofka kale qofka inuu ku dareemo macnaha ciriiri fara badan sidoo kalena uu ku cijismo iyo daal fara badan dhinaca caadifada la xiriira waxaa kaloo qodobka labaad oo rabna inaan ka hadalno waxa waaye isku dheelitirnaanta dhinaca caadifada tawaasun caadifi wax la yiraahdo oo ah jacaylka markuu jiro isku dheelitirnaan baa jira deganaansho ayaa jira caadifo ahaan calaaqada waxaa kaloo waa la isdhiirigelinayaa waa la yani dhinaca markii ay jirto dhinaca xilliyada adag macnaha waa la istaageerayaa sidoo kale waxaa iyadana ku jira meeshaas oo ah inay ahamiyad leedahay mashaacirtooda sidii ay u maamuli lahaayeen oo ay emotional intelligence ama dakaa alcaadifi heer sareeya ayay leeyihiin oo xiriirka uu macnaha ku soconaya marka taasna waxay keenaysaa inay caafimaad qab uu jiro oo dhinaca caadifada ah waana midda koowaad ee loo baahan yahay xiriir kasta oo caafimaad qaba tan marka waxay keenaysaa inuu qofka kale uu fahmo mashaacirtiisa siduu u kontrooli lahaa taas oo dhisaysa qofka haddaba waxaa kaloo jira dhinaca kale markaa fiiriso xanuunkan dad kale ma ogola arrintaas waxaa iska jira mashaakil aan dhammaaneyn oo xal lahayn oo keenaysa marka inuu siyaadinaysa inay deganaansho la-aan mar walba ay jirto waxaa jira tacalluq oo xanuun ah qalaq fara badan baa jira cabsi fara badan ayaa jira taasoo markasta qofka isku dayayo waxaas meesha ka saar anigu waa ku rabaa iyo waa rabtaa ima rabtid waxaas markay meesha jirto qofka kale wuu daalayaa dhibaato badan ayaa meeshaas nafsi ahaan kasoo qabsanaysa qofka waxaa ugu dambeeya jaanibka saddexaad oo ah xuduud oo sixe ah oo caafimaad qaba marka jacaylka uu jiro xuduuddaas ayaa jira waa la ixtiraamayaa si toos ayaa loo wada hadlayaa oo saraaxo ah been la isku sheegi maayo halka kan kale aysan jirin xuduud la wada ilaalinayo xuduuddaas oo qofkan uu ka gudbayo uu isku dayo inuu qofka kontaroolo maskaxda ka qabsado isku dayo inuu maanta oo dhan yani cabasho fara badan iyo xagee aadi habixin halkii ila joog see aadi waa aragteen taleefanada keen whatsappkaaga kontaroolkaas faraha badan qofka kale waxay ku keenaysaa inuu ku jismo daal fara badan oo dhinaca caadifada ayay keenaysaa haddaba muhiim ayay tahay inaad arrintan fahanto xilli hore haddaa fahantidna waxaa fiican inaad qofka kale u sheegto inay tahay arrintan cillad haddii la xallin kari weysidna sidii aad uga bixi lahayd